markaas wuxuu dhigin soo fiir wuxuu waxaan la yaabanahay waraabaha wiilkayga cunay dulqaad badnidiisaan la yaabanahay wiilkiina wuu cunay shaatigiina meel ka muuna jeexin seebu uga siibay waan la yaabanahay hadduu waraabaha cunay muxuu goosan way qamiiskan muxuu dhinac uga goosan way gacmo muu qaba waraabo tartiib muu uga siibay nabi yuusuf qamiiska maya marka qamiiska sidii oo kale ku sameeyeen saxafigii maya waa la ceejiyey ma awmeedkiisa aaway lama hayo xagee la geeyey ilaa hadda wixii dhan waa la hayaa waxay ku noqotay marka arrin la yaab leh hadday moodayaan sacuudiga inay saan wax ku noqonayaan ninkaas mayna isku taabteen laakiin moogtahay Soomaalida waxay yiraahdeen meeshu Ilaahay wax ka wado dameera weyle ka dhala dameer iyo weyl isma le moogtahay meeshu Ilaahay wax ka wado hadda ninkaas maxaa meesha keenay waxa la yiri gabar uu rabo inuu guursado warqad fasax ah in loo qoro ayuu Mareykanka uga yimid safaarad Mareykanka kuma taalamiya meeshu joogay meeshaas intuu tawaayay warqadaas aan rabaa in la ii qoro ilaan tan Turkigu way qori kartaa tan Mareykanku way qori kartaa maxaa loola soo doontay tan Turkiga gaalada aqli xumidooda waxay la soo dooneen waxay leeyihiin waxay rabeen Turkiga inay ku ceebeeyaan oo dhahaan nabadgelyo kama jirto Turkiga saxafiyiintii waa kaas waa lagu dilay laakiin Turkiga ma yaqaanaan Turkiga waa dad ilbaxa oo xadaaro hore way ku dabagediyeen markaas waxay ku noqotay in qalaba sixru ala saaxiri sixirka nin oo saaxira wuxuu sameeyay inuu dadka sixiro asagii labeeyay sixirad asagii in qalaba sixru ala saaxira la yiraahdaa way ku dabagedoontay marka maanta waxay taagayeen Sacuudiyaanku Turkida inay iska babariyaan way dhahan walaalayaalow xaaladu si kasto ay ahaato wax kastaan idin siinayna lacagaha Mareykanka siinay ka badan idin siinayna qadiyada naga soo afjara Turkiguna uu leeyahay arintaas ayada hatta waxay yiraahdeen talmiix waxay u sameeyeen Sacuudigu soo qadar mayna go'doominin oo qadar mayna hareeraynin oo yaani muddo mayna dhibaynin waxay talmiixina waxay leeyihiin hatta qadar waan la heshiinaynaa oo waan ka qaadaynaa cunaqabatayntii caadi aan ka dhigaynaa arinta le mar ma naga aamusiin kartaan oo wax lacagta waan markaas wuxuu dhaxal suugaha soo qadar ka hadlaay qadar inkastoo wax nagala dhaxeeyaan colaad saas oo kala ah laakiin dhaqaalaha wadankaasi uu dhisan yahay 5 sano ee soo socotana dhaqaalaha ka sii xoog weyn ayaa laga moogtaa uu isdii markaysa madaxu darbi ku dhuftay marka hore wuxuu lahaa intii la xisaaro oo cuna qabatay qadar ayay wuxuu dhan waa tada aan sheegayno oo kale turku marka wuxuu yiraahdeen haadi rishwatun siyaasiya laaluush siyaasadeed anagu ma qaadano arrinta waan baaraynaa nala shaqeeya xaqiiqada aan ka kortagno kuwii dilay ee juraada waa la yaqaana kuwan waliba arrintu ma kuwan dilay ee la soo diray ma sheekadu moogtaa nin askari oo la diray wax soo sameeyay la yiri kii soo diray inaad u jeedid waa intii af ma meegan dijirin hadda koor libaax intuu neef ka qaaday yuu xagga iskala fariistay libaaxi ma bacarrayo libaax neefkiisu iska cunaaya kii neefka iska lahaa libaaxi oo neefka cunaayo arkay waa ag taagan u jeeda intuu ka sii jeestay ma fiirin kare yuu dad xagga maray wuxuu ku yiri libaaxi neefka ay qaaday raadkiisi ma aragteen way arkaan asna waa arkaa libaaxi ma aragteen way u jawaabeen marka waxay yiraahdeen libeeka waaba araga haytay santis may ku weydiyaas libaax halkan uu fadhiyaa neefku uu cunayaa raadkiisa iyo arkay iyo xaquu ka baxay marka sheekadu halkaas ay joogtaa marka adduunkan Ilaahay baa iska leh